tan aniga igu dhacday ma lagu tilmaami karo qiso 24 saac oo kamida nolosheedu waxaan ku qaato ooyin aad ayaan u sigtay in aan isdilo ayaan ku sigtay laakiin waxa ay celiyay damiirkaygu wiilku aad ayaan u jeclaay asiguna wuu i jeclaay laakiin waxaa qaaday damac adduun naftu ciil badana gayaankan jeclaay uurku taalo iiga tegay waa qiso xanuun badan qisadaas ayaan idiin soo gudbinayaa inta qisada ay socoto gabadha ay ku dhacday magaceeda iyo meesha ay joogtoba waan qari doonaa alla jacaylku xanuun badana oo markaa weysid xanuun badana oo ilinta ruux kaa tira markaa weysid xanuun badana oo qalbi jabay inuu soo noqdo xanuun badana oo farxadda inay soo noqoto xanuun badana alla haddaa jacayl heshan maxaad nasiib badan tahay jacaylow maxaa lagugu tilmaamaa jacaylow adiga maxaad tahay qisadan ayaa idiin soo gudbinayaa gabadhan waxa ay ahayd gabar aad u dhoorsan oo qurux badan oo joog iyo jamaag Allah uu siiyey qof walba uu arko aad ayuu u jeclaay sidoo kale aad ayuu u xiiseynaya xiriir jacayl inuu la sameeyo waa gaashaan oo ma soo baxdo hal maray wax soo doonto oo keliya ayay bannaanka u soo baxdaa waxay ahayd gabar aad u qurux badan kaaga daran asturnaantu iyo xijaabkana wuu u sii dheeryahay oo waxay ahayd gabar diinta si fiican u baratay maalin maalmaha ka mid ah ayay soo baxday maalin walbana sidaas oo kale ayay wax u soo dooni jirtay laakiin nasiibku maalinkaas wuxuu ahaa in mid ka mid ah wiilasha ay dariska yihiin ay isbartaan isma yaqaanaan wiilku gabadhu ma yaqaano ayadana ma taqaano gabadhu waa ay soo baxday meel dukaan ah oo carwo ah ayay soo aaday kadib carwadaas ayay ka soo adeeganaysay markii carwada ay ka soo adeegatay wiilkii gabadhii aad ayuu ula jeclaaday asturnaanta xijaabka dulqaadka socodka wax walba gabadhaas ayuuna lagu xulo karay wiilku gabadhi in muddaa markuu la socdo oo islahay la hadal dad ayay gabadhii dhex gashay dadkii ayuu ka soo saari waayey meel maqaaxi ah ayuu wiilkii iska fadhiistay in muddaa markii wiilka uu fadhiyey kadib gabadhii waa uu waayey waxa uu qalbigiisu weydiiyey su'aalo badan su'aalahaas oo ay ka mid ahaayeen halkee gabadhii laga raadi karaa xaggee ka bilaabi kartaa sheekada intee ku soco kartaa wiilkii marqura ah ayaa qalbigiisu waxay soo gashay in gabadhii carwada ay ka soo adeegatay waa uu soo orday kadibna carwadii ayuu imaaday markaas ayuu weydiiyey mid meesha lacagta fidhiyey markaas ayuu ku dhahay walaal su'aal ma ku weydii karaa haa waxaan u baahanahay gabadhii haddaad ka adeeganaysay ciwaankeedu ma igu caawi kartaa ama lambarkeeda ma sii kartaa wax walba oo jirana waa uu la wadaagay markaas ayuu dhahay maya oo ma ku sii karo midaas ma samee karo wiilka meesha lacagta fadhiyey waxa uu ka cabsanayay in la ogaado in wiilkani meesha carwada lambarka uu ka soo helo wiilkii saacado badan ayuu fadhiyey kii meesha lacagta fadhiyeyna lambarkii wuu u diiday shaqaalihii kaloo carwada ayaa la iskugu yeedhay kadibna wiilkii si dhaba ayuu ugu sheegtay su'aal ayaa la weydiiyey maxaad ku falaysaa markaas ayuu dhahay aad ayaan ugu helay way qurux badan tahay way soo jiidatay way dhoorsan tahay ugu caawiyey lambarkaas waxaan ahay naf wax jecel dooqaan leeyahay waan ka heli karaa mid ka mid ah shaqaalihii carwada joogay ayaa lambarkii siiyey uu u mahad celiyey wuxuu dhaha waa mahadsantihiin waxaad ii iftiimiseen waxaan rajeynayaa guul qurux badan inaan ka keeno wiilkii waa uu soo baxay farxadda ka muuqanayso ayadoo ay saa'id tahay qolkiisii ayuu soo galay wicitaan ayuu bilaabay gabadhu aaday u soo dhoweysay
markaas ayuu dhahay wiil Soomaaliyeed ahay iyo waran see tahay. markaas kadib ayay dhahday waa kuma. wiilkii markaas ayuu dhahay abaaye galabta ayaan wadada kugu arkay. markaas ayay dhahday waad edeb daran tahay, waad akhlaaq xun tahay, lambarkii iyo nabadgeli. gabadhu waxay ku mooday ruux ku ciyaarayo. wiilku waxa uu aragtidii hore uu gabadha arkin wuxuu u qaaday xiriir jacayl oo qurux badan. gabadhii way aamini weysay, wuu iska daayay. wiilkii waxuu sameeyay ayuu aqooway. cod buu duubaa, fariin buu diraa, wax walba oo gabadhii ku hana karo waa uu sameeyay. markii dambe xitaa wuxuu gaaray wiilka uu dhaho jaanis aan kuula kulmaysay. maya ayay dhahday, ilaa gabadhu waa gabar aad isku ilaalinayso, waa xuuralceen, waa geenyo, waa faras, waa gabar ninkii arka uu dhahayo alla tanoo kale dunida ku nooleed. wiilku waxaa markii dambe u suurta gashay diidmo dheer kadib gabadhii inay ka aqbasho inay is arkaan. markii gabadhii iyo wiilkii is arkeen, halkaas ayuu xiriirkoodii jacaylka quruxda badnaa uu ku bilowday. gabadhu aad bay wiilku ugu heshay, wiilkuna aad buu gabadha ugu helay. kulankii koowaad waxa uu ka dhacay xaafadda gabadha. marka uu ka dhacay kadib wiilku waa uu soo baxay. habeenku farxadda uu qaadanayay, reereenta uu dareemayay, jawiga quruxda badan waxa uu ahaa miduu naftiisa aad ula riyaaqay. gabadhu iyo wiilku waxa ay halkaas ka sii wadeen jacaylkoodii quruxda badnaa. ayaga oo sameeyay jacayl qurux badan, waxa uu gaaray heer waalidiintii xaafadda joogay ay ku ammaanaan jacaylka labadooda ka dhaxeeyo. waxa uu gaaray heer qof walba is arkaan ay dhahaan waxaa tihiin lamaanihii qarniga. allah, lamaanuhu inay kala fogaadaan halis badanaa, qalbi murugo inuu dareemo halis badanaa, qalbi inuu cidlo dareemo halis badanaa, qof aad jeceshaa inaa weysana murugo badanaa, qalbi jaba inuu soo noqdana tiiraanyadiisu xumaa. gabadhu wiilku aad bay u jecleed, asigana aad buu u jeclaay. wiilku waxaa qalbigiisa ku jiray tahriib, waxaa qalbigiisa soo galay inuu baxo. waxa uu islahaay nolol tan ka fiican raadi oo gabadhan guur qurux badan u dhig. wiilku habeenada ka mid ah ayuu gabadhii soo wacay. markaas ayuu ku dhahay waxaan doonayaa muddo isbuuca safar gaaban inaan galo. gabadhii aad ayay u murugootay, ilinta qalbiga ayay ku ooynaysaa. tii caadiga inay ka soo baxdo way ku adkeed. ayada oo diidi karin ayay dhahday gacaliye fasax ayaa tahay. labadoodu aad ayay u ilameeyeen. waxay galeen marxalad murugo badan. waxay galeen mid walba midka kale qalbigiisa wax walba oo murugo dareemayo. wiilkii waa uu baxay, tahriib ayuu galay, saaxiibtiisu wuu ka qariyay. waxa uu gacanta u galay kooxaha magafayaasha ee Liibiya joogo. kadib wiilkii gacanta ayaa lagu dhigay. muddo bilooyin ah ayuu xirnaay. sidii muddo bilooyin ah oo wiilkii u xirnaay ayaa markii dambe wiilkii waxaa u suurta gashay in la sii daayo. wiilkii Yurub ayuu galay. markii Yurub uu galaba durbaba waxa uu soo wacay naftii uu jeclaay, gabadhii uu jeclaay. aad ayay ugu faraxday. allah ayay u mahadcelisay. waxay dhahday ilaahow maadaas adigaa iska leh oo ii suurtageliyay oo maanta noo suurtageliyay nolosheena inay sii jirto oo saaxiibkii kooxahaas ka sii daayay. gabadhu waxay islahayd Yurub hadduu aaday markaan wax walba way hagaagayeen. wiilku cidda uu ka dhashtay gabadha waxay aad u jeclaayeen gabadha wiilkooda uu la socdo, dhaqanka, diinta, asluubta, wanaagga, xushmadda iyo reereentu. wiilku Yurub markuu aaday wiilku wuxuu bartay gabar. gabadhu guur bay haddana soo martay. waxay haysataa sharci ay Yurub ku joogi karto. waxa ay haysataa baasaboor. wiilku waxa uu ku fakeray in noloshiisii hore uu burburiyo, in noloshiisii hore wax aan jirin uu ka soo qaado,
in noloshiisii hore halkaasuu ku buriburiyo asaga oo ka doorbiday baasaboorka Yurub iyo sharciyada gabadhan ee haysato. waxa uu naftiisii ka saaray ballankii uu qaaday, waxa uu naftiisa ka saaray axdigii gabadhii dhowr saneed oo ka qaaday, waxa uu iloobay rafaadka iyo silicii gabadhaas barashadeeda uu u soo maray. kadib gabadhii waxay ogaatay ninkii in uu guurso rabo gabar Yurub joogto, sharci iyo baasaboor haysato. waa i wacday, hadallo kulul ayuu kula hadlay, waa uu u sheegay inuu guurso rabo gabar Yurub joogto. gabadhu istaagga ayay ka dhacday, aad ayay u ooysay, waa ay ilmeysay, wax ay samaysay ayay aqooweysay. dareenkeedu wuu isbedelay. 24 saac oo ka mid ah nolosheedu waxa ay ku qaadanayso ooyin. waxa ay dareentay cidlatii ugu xoogganeed, waxa ay dareentay bilaa-aadan inaysan aaminaad lahayn. deriskii dhammaantood waa ay soo baxeen, murugada ayay la qaybsanayaan. gabadhu dhowr mar waxay ku sigatay inay isdisho, dhowr mar waxay ku sigatay adduunka inay ka tagto. haddana way iscelisay. gabadhu waxay ahayd gabar iimaan leh oo diinta wax badan ka baratay. wiilku ciddiisu aad ayay ula yaabeen, way la taliyeen. markaas ayay dhaheen gabadhan dhoorsan, qalbigeeda dhoor. ciddu aad ayay ugu murugoodeen. gabadhii ayay u tageen ayaga oo wax walba ka raaligelinayo. maxay raaligelin tiraysaa? qalbi ayaa jabay, cidlo ayuu dareemay. noloshu waa iska silacaas. qisadan waxaa ka baranaynaa in murugadu ay tahay dhibaato, ballanku inuu rabo oofin, qalbi ku jecel inuu kaa rabo dhowr. qof walba waxaa la rabaa qalbigaada sidaa u jeceshahay in lagu dhooro, inaa u doortid lamaanta aad jeceshahay. hantida ugu qaalisan ee dunidan waxa ay tahay qalbigii ku jeclaay inaa aamintid. ha murugaysiin qof ku jecel ciil ha badin. qalbi jabay sooma noqdo. uurku taallada ka ilaali, murugada naga daay. alla jeceylow maxaa tahay? maxaan kugu aaminaa? maxaan sameynaa? waa ereyada ugu qaalisan ee kuwa lamaanaha ay adeegsadaan. allo maxay lamaanuhu murugada dhibtaa. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. ilaa iyo dhammaadka haddii aad nala socoto waa ku mahadsan tahay saaxiibka sharafta mudanow. haddii aad ka heshay qisadan, saaxiibadaa u sheergaray. sidoo kale barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 leeg noo saar si aan u helno saaxiib adigoo kale. saaxiibadaana u sheergaray si saaxiib sida adiga u sharaf badantaa u helno. kunkii wax yaraa nooga dhiman, adiga ayaana na gaarsii karo oo noo horseedi karo. waxaan u taaganahay mar walba inaan idiin soo gudbiyo qisooyinka cimri qaadashada leh. dhowr oo ilaali qalbiga ku jecel.